soo dhawaada kheyr sida daawaneysaan dagaalka ugu cuslaa ee balad xaw goordhow ka bilowday muddo hadda nus saac laga joogo ayuu dagaalka socdaa. ciidamada dowladda iyo cabdirashiid jalan ayaa la sheegay in magaalada gudaha u galeen dhowr maro hore. waxaa ka adkaaday ciidamada Jubbaland oo markaasi ka adkaaday magaaladan u diiday inay soo galaan, laakiin maanta waxaa la leeyahay gudaha la isla galay oo falaqeyn doona halka ay wax marayaan dhimashada iyo dhaawaca. waxaa kaloo soo qaadan doona magaalada Boosaaso waxaa kala xirtay ciidamo gadoodsan oo kusoo dhacay buuraha Calmiska. dhibaatadaasna waan falaqeyn doonaa. waxaa kaloo falaqeyn doonaa xaaladii ugu dambeeyay magaalada markaasi Laascaanood iyo shirkii meesha u maray ee soo gudbi doonaa. dowladda Itoobiya oo sii deysay taliyihii hay'adda NISA ee Dolow hubkiisii iyo ciidamadiisina gacanta u gelisay, inkastoo 15 askari ay dhaawacan yihiin oo isbitaalka magaalada Dolow lagu daweynayo. arrintaas dowladda federaalka Soomaaliya ka shaqeysay sidee hadda maxaa lagu guuleystay maxaasa fashilmay waa soo qaadan doona barnaamij shirkada meel fogaarsi. waxaan ku hormaraynaa dagaalka ugu cuslaa ee magaalada balad xaw ka socdo. goordhow ayuuna dagaalkaasi bilowday, dhimashada iyo dhaawaca ugu tirada badnaa ayaana halkaasi ka dhashay muddo nus saac kaliya. waxaad u malaysaa in dagaalku laysku buurtay. marka hore cabdirashiid jalan ciidamadiisa dhowr mar magaalada madaxa soo geliyeen, waa laga saaray ilaa 3 beri oo dagaalka socdayba magaalada dib lagu celinay, xeriyuka lagu celinay. laakiin maanta lama garanayo meel ay wax ka heleen. magaaladii ay gudaha u galeen, waxayna qabsadeen xaruntii booliiska tii maxaa la yiraahdaa jinsiyadaha loogu adeegi jiray baasaboorada iyo dadka waaxda jinsiyadaha. waxay kala qabsadeen xarumo kale oo markaas muhiim u ah magaalada. xaafaddu waa beri dhan way la wareegeen. waxay ciidamada Jubbaland ay gubeen xaruntii korontada ay dab qabadsiiyeen. marka xaaladdu ma sahlano, dagaalku uu cuslaaday, madaafiicda la isku adeegsanayaa, dhimashada iyo dhaawacuna xisaab ma laha. arrintaasi waa arrin aad dhibaato u ah dadka Soomaaliyeed ee reer balad xaw. balad xaw waxaa ku haray kaliya dad hal ah oo shaqsi guriyahooda waardiyeysanay. dadka intooda kale waa iskaga barkaceen magaaladii. marka madaafiicda iyo sida arkaysa sabanada iyo waxaa sida roobka ugu hoobanayo hubka culus. waxaa marka laga dhaxli karaa arrintan waxaa laga dhaxli karaa dhibaato badan, burbur, hanti la-aan, dhimasho iyo dhaawac aan micno lahayn. dadka islaynayna waa dad inta badan isku degaan ah. gurmado ayaa soo kala gaaray oo ka kala yimid Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya dhankeeda. marka gurmadadaas waxay keeneen in dagaalku uu cuslaado oo xaaladdu ay sii bedesho, dhimashada dhaawac oo bato. shalay waxaa la qaaday ciidamadii dowladda ee ku dhaawacmay dagaalka balad xaw loo qaaday magaalada Muqdisho. kuwii Jubbaland weli waxaa magaalada balad xaw lagu daweynaya. ayagana waxaa laga yaabaa in loo qaado mar dhow xarumo kale oo aan ahayn balad xaw in la geeyo, maadaama serviceka oo ka duwanaan karo oo ka fiican yahay. waxaan leeyahay dagaalkaasi socdo ee dhimashada dhaawac sababay oo maanta dad kale ay markaasi halkan usoo rareen. waxaan dhihi karnaa mid nasiib darro ah waaye. dhimashada halkaas ka dhalinaysa waa mid nasiib darro ah, dhaawac halkaas ka dhalinaya waa nasiib darro, dadka ku barakacay waa nasiib darro iyo maxaa la yiraahdaa waxaan wanaagsanayn. waxaan dhihi lahaa marka dagaalkaas in la iska joojiyo oo dhibaatada la iska daayo oo burburka la iska daayo oo xaaladda jahwareerka ah ee lagu jiro ummadda Soomaaliyeed laga daayo. siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa, waa lagu kala fogaan karaa. labada nin ee had siyaasadda isku diidan Axmedoobe iyo Xasan Sheekh maamul bay iswacan, ayaga iska ka og. dagaal oo hadda caadiga oo ka dhexeeya ayaga ma jiro, laakiin siyaasadda dadku waxay tusinayaan in dagaal uu ka dhexeeyo. Siciidan iyo Xasan Sheekh waa iswacan, Axmedoobe iyo Xasan Sheekh waa iswacan. dad marka siyaasadda la isku hay dagaalna uusan ka dhexin dartiis in loo dhinto aniga ma qabo. waxaa waaye magaaladana wixii kasoo korray dagaalkaasi mar walba waa idiin soo gudbi doonaa. magaaladu meel xun ay xaaladeedu maraysaa. ciidanka cabdirashiid jalan magaalada 3 marka loo qabo 2 qayb ayaga la wareegay sida warbaahinta ay nagu soo gaarayso. marka horena magaalada waxaa gacanta ku hayay ciidamada Jubbaland oo si toos u haystay. weliba Jubbaland shalay ciidamo tiro badan ayaa soo gaaray, laakiin lama garanayo shaxda iyo dagaalka uu isticmaalay cabdirashiid jalan oo ciidamada oo asaga wato ay ugu soo gashay inay gudaha magaalada u galaan. marka dagaalkaasi ishaan ku hayn doona waan idiin soo gudbi doonaa. waxaan aadaynaa dhanka iyo maxaa la yiraahdaa Boosaaso. waxaa kala xirtay jidadka waaweyn ee muhiimka ah. magaalada waxaa kala xiray dhalinyaro fara badan oo kusoo dhaawacantay dagaalka buuraha Calmiska, ayagoo sheegay inay xaqooda ay laayihiin. jidadka ay bagaadid ku jireen waxay yiraahdeen si kastay ahaataba lama mari doono, waa in xaqoodeena la siiyaa. marka lama garanayo waxa ay sameyn doonaan. qaarkood waa hubeysan yihiin, hubkooda iyo dib usoo qaateen. qaarkoodna waxaa ma hubeysan oo waa dhalinyaro iska caadiya oo bere iyo wax ku booday. marka xaaladaasi waxaa keenaysaa leeyahay isbitaalka intaan ku jirnay xaqoodii aan u baahnayn ee daweyn iyo midii dhaqaale ee aan lahaynba midnaba ma hayn ay leeyihiin. marka taasaa keentay inay dibadbaxa iyo foodada iyo jidadka in la jaro ay bilaabaan, inkastoo laga yaabo in Siciidani oo arrintan xaliyo haddana weli laguma guuleysanin inuu soo dhex galo oo arrintaasi u xaliyo. ishaan ku hayn doonaa gadoodka ay sameeyeen dadka maxaa la yiraahdaa maxaabiis ma ahayn, waa dad dhaawacan oo dhaawacyo qaba oo buuraha Calmiska ku dhaawacmay ayagoo xoreynayo dhulkoodii oo niman ajaanib ah oo ku soo duulay
ka saaraya ayaa markaasi dhibaatada soo gaartay. ilaahay caafiya lana caafimaad degdeg ha siiyo. soomaalida maskaxdeedan allah soo celiyo. soomaalida khilaaf haddaan jiri lahayn oo khilaaf dhexdeeda uusan jiri lahayn soomaaliya way guulaysan lahayd, meelo badanna way gaari lahayd. hadda waxaa leeyahay 2 diyaarado oo Soomaaliya leedahay ayaa shaqo bilaabi doono muddo 2 bilood gudahooda. waa arrin wanaagsan oo Soomaaliya usoo hoyatay. shidaalka la qodaa leeyahay Soomaaliya usoo hoyatay. waxyaabo fara badan oo horumar ah diyaarada Soomaaliya ay leeyihiin oo dhaawacyada meesha ay shabaabka lagula dagaalamayo kasoo qaadayso saadka geynaysa ayaa la helay. marka isbedeladaas waa wax muhiim ah. dadku waxay ku leeyihiin xasan sheekh waxa ma qaban. xasan sheekh intuu u qabtay Soomaaliya u qabtay, intuu ahleena Soomaaliya ka helay. farmaajo intuu qabtay Soomaaliya u qabtay, intuu ahleena Soomaaliya ka helay. laakiin dad nin walba yimaado waxba sii qabanay. hadda waqtiga farmaajo ciidamada tababarka ahbaynta wadooyin kale oo furay barnaamijyo badan oo hagaajiyay systemka maxaa la yiraahdaa biometriga ciidamada lagu qaato maxaa la yiraahdaa mushaaraadkooda lagu saxa asaga qayro way hagaajiyeen. ninkan hadda dinacafintii wixii uu ka shaqeeyay oo hubka cunaqabateynta laga qaaday asagana waxa waaye wax badan marka uu suura galay oo diyaarada Soomaaliya ilaa 10 xaba ina maanta la hayo gacanta lagu hayo oo helicopters iyo Kenji iyo balaayo ku jiraan. waxaa kaloo laga faa'iiday in maxaa la yiraahdaa diyaaradii Soomaaliya arrin la soo celiyo ayadana faa'iido kale waay. isbedelo waaweyn ayada naftigeeda ka muuqdo inkastoo xagga dhulka iyo maxaa la yiraahdaa boobka lagu haysto xal sheekh oo ah arrimo aan wanaagsaneyn oo dadka leeyahay dhulka danta guud ayaa dadka laga saaraya. dadka laga saar maxamed dib u dejin ma loo sameeyay. taas ayada naftigeeda xal sheekh lagu eedeynaya. marka qolo walba maad waxbay uu sameeynayay taas wixii sameysmaan Soomaaliya u sameysmaan. waa ka gudbayna magaalada Laascaanood daan tagno shirkii iyo waxyaabo badan la isku haystay dooda ka taagna shirka inuu sii socdo. inta badan waa la isku fahmay laakiin waxyaabo yar yar ayaa la isku fahmay. waxaan arkay wiil warsangeliya ama nin weyn oo warsangeliya oo soo dhigay marka dambe taargada oo ku qoran tahay SSC Khaatumo. wuxuu yiri wixii kale haddaan ka heshiinay war taargada naga bedel haddana SSC Khaatumo ku qoran tahay. baashi meel kale gaartay. wuxuu yiri arrinta waa la isla soo dhaafay oo taas iyo wixii xildhibaanadii iyo wixii waa laga laakiin Khaatumo SSC Khaatumo taargadana ku qoran tahay bedel yirniyo. baasha halkaas aan ugu dambeys wax dambe idin weydiimayno waa tiin ugu dambeysoo leeyahay naga bedel. marka baashi fooday gaartay halkaas xaaladdu ay maraysaa. dhaqay ciidan oo ka jiraan cirgaabo iyo meelo kale oo saanad military oo Soomaaliland soo dhowtaa jiro waliba ilaa baran ay gaarsiisay saanadaas military. SSC Khaatumo iyo Maqar State ilaa hadda wax tilaab ah oo ciidamadaas ay ka qaadeen ama xabad ay ku rideen ma jirto. waxay sugayaan kaliya inay maamulkooda dhamaystirtaan lagu dhawaaqo markaas kadib ay yiraahdaan war anagu waxa maamulku waa helnay haddaan noo bannaan tahay dagaal inaan galno. laakiin inta maamul ka helayno dagaal iyo foodo nooma bannaano. guri maxaa waaye maxaa la yiraahdaa ku jiro nin guri ku jiro maxaa la maraayid ah ma tuuro dhagaxa leeyahay. marka hadda waxa guri maraayid ku jiraan oo shirkoodii iyo waxoodii iyo ku mashquulsan yihiin. marka ku dhawaaqitaanka inta ka horeyso xilli anagu xabad marideyno ma taabanayno mana dhaxgalayno. halkaas xaaladdu ay maraysaa. dowladda Itoobiya waxay soo deysay taliye NISA ninka lagu magacaabo Shaqaalow iyo dhalinyaro kale fara badan ilaa 30 gaarayo hubkoodii iyo waxooda gacanta lagu celiyay magaalada Dolow ay dib ugu howlgaleen. laakiin waxay sheegeen inay tahay inay laba mid sameeyeen balad xaw aadan Cabdi Janan ku biiraan iyo inay maxaa la yiraahdaa ciidamada Jubbaland halkaas jooga taageeraan. labadaas mid inay soo galaan ay shuruud ka dhigeen in la sii daayana dowladda federaalka Soomaaliya ku qasabtay Itoobiya mar inay sii dayso oo waxay rabtay inay nimankan iska haysato xabsiga ku hayso. marka taliye Shaqaalow iyo ku-xigeenkiisa waa la sii daayay dhaawacyo inay jiraan la sheegay oo lagu daweynayo magaalada. haddana horumar maxaa la yiraahdaa la taaban karo oo intaas laga gaar ma jirto. dowladda federaalka Soomaaliya Itoobiya waxaa la sheegay in shuruudo badan isku afgarteen kuwa badan isku fahmi waayeen. waxay isku fahmi waayeen in dowladda loo ogolaado garoonka Dolow inay ciidamo ka soo dejiso oo markaas gobolka Gado ay u isticmaalaan. marka Itoobiya waxay tiraahdaa maya suuragal ma arrintaas ciidamadaas anaga hadhow dib noo keenayaan dagaal in la galayaan. marka suuragal ma. marka Itoobiya Jubbaland hoos kala socotaa inta badan arrintaas way diiday laakiin waxay ogolaatay inay siyaasadda ama arrimaha gobolka Gado ee faraha kala baxdo. Jubbaland caawinaysa ee faraha kala baxdo. waxay kale ogolaatay in markaan aysan ku xadgudbin oo mar dambe aysan xabad ridin ama madaafiic aysan ku garaacin. arrintaasna waa ogolaatay. marka howlo badanna way diideen howlo badanna waa ogolaadeen. waa arrin la isku haysto oo mar walba Itoobiya dhibaato ay ku hayso ummadda Soomaaliyeed. waan arki doonaa wixii kasoo kordha dagaalkaas barta xaawi meesha oo maran halkan ay kusoo gudbinayaan barnaamijka Garemel Fugarsiye. inta barnaamijka ku doona xalan hay fi amaan illah.